بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار. يعني كل عام وأنتم سعداء. نبارك لكم بمناسبة عيد الغدير ينعاد عليكم في كل عام إن شاء الله تعالى. إن شاء الله وحن إذن لا وذاك يا مانتا مناسبة عيد الغدير وحيرة كسابسا، لكن عيد الغدير محيط مانتا أوكلا أي الرسول كان محمد عليه الصلاة والسلام سندي كوي الطبنادي هجرة حلي حجك وكسر نقضي أيو taageerayaashiisa kula kulmay meel lagu magacaabo ciidul qadiir oo ah duleedka magaalada Makka. Arinta maxay ku timid? Rasuulkeena Maxamed alayhi salaatu wasalaam waxa la ogyahay inuu xajiyay hal xaj ayuu xajiyay sidiisaba. Halka xaj waa xajka rasmiga ah, yani xaj hore uu xajiyay jir, laakiin xajka rasmiga ah wuxuu ahaa xajkii loo yaqaanay sagootiska ama xajkii loo yaqaanay xajatul wadaa. sanadii 11 markay soo gaadhay oo geeridii rasuulka kaleey salaatu wasalaam ay soo dhawaatay ayuu rasuulku ugu baaqay taageerayaashiisa inay soo diyaar garoobaan oo ninkii la xajinaya oo maxay ahayd la xajiyo una u sheegay inuu rabo inuu baro acmaasha xajka la qabto. dhammaan dadkii taageerayaashiisa ama Madiinaha joogeen ama Makka joogeen ama Yaman ama reer Ciraaq kuwii muuminiinta ahaa ama Masar kulli waa laga yimid wala la xajiyay. kutubta taariikhda qaarkood waxay sheegaan inay dhamaayeen dadkii rasuulka sanadka la xajiyay xajki sagootiska 100,000, laakiin muhaqiqa caanka ah oo taariikhda aad uga hadla Dr. Xasan Farxaan al-Maliki wuxuu sheegay inay dadku dhamaayeen 40,000 dadkii rasuulku halka kula hadlay. xajatul wadaa rasuulku markuu soo dhameeyay oo ka soo baxay magaalada Makka meel la yiraahdo Qadiir al-Khum oo waadi yar oo halka mara ayuu kula kulmay rasuulku dadka. halkaas markuu marayo ayuu dadka la iskugu yeeray kuwii horay ahaa la soo celi horay ka horeeyay kuwii dib ka soo socday soo gaadha halkaas la wada fariistay. meeshaas waa meel muftaraq duruq oo wadooyinku ay ku kala tagaan oo dadka ahlu Madiina u socday halka ka ama baxaan meesh lagu kala ama baxay dadka Ciraaq aadahay ay ka tagaan kuwa Yaman aad ay ka tagaan waa meesh lagu kala ama baxay. halkaas ayuu rasuulkeena Maxamed alayhi salaatu wasalaam xilli dhuhurkii kula hadlay dadka intuu salaadii dhuhur tujiyay markii la isku yimid iyadoo qorraxdu ay aad u kulushay oo nin walba maradiisa uu hagoogan yahay ninkii yadimayay dhulku uu kulul yahay kabaha wax gashan kara ninkii gool dhigan kara halkaas ayuu kula kulmay. muxuu u sheegay rasuulku alayhi salaatu wasalaam mandiqada la yiraahdo Raabiq oo maxay ahayday u dhaxaysa Makka iyo Madiina makana duleedkeeda oo maxay ahayday ka fog meesha juxfa la yiraahdo oo ah miiqaad laga xajiyo 3 mayl ay ka fogtay. halka markuu rasuulku maraya alayhi salaatu wasalaam ayaa waxa ku soo degay Jibriil baa ku soo degay rasuulka alayhi salaatu wasalaam isagoo u keenay wahyi. aayadan ayaana ku soo degtay rasuulka yaa ayuha rasuul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka min an-nas. ayada ay ku soo degtay oo oranaysa rasuulkano wixii lagu soo dajiyay dadka u sheego gaarsi xagga rabbiga wixii lagaaga soo dajiyay dadka gaarsiyo u sheeg. hadii aadan sidaas sameeynin risaaladii ilaahay maada gaarsiinin wallahu ya'simuka min an-nas. ilaahayna dadka ayuu ka ilaalinaya jinka ma wax laga ilaalinayo waa dadka bini aadamka. su'aashu marka waxay tahay ahbaabana al-kiram risaaladan la leeyahay dadka gaarsi maxay tahay fariintan la leeyahay hadii aadan sidaas sameeynin oo waxa lagu soo dajiyay aad dadka u sheegin fariintii ilaahay maada gaarsiinin maxay tahay. fariinta la leeyahay dadka gaarsi maxay ahayd fariintu waa sidan soo socota. fariinta ayuu dadka marka u sheegay rasuulku markan uu dadka iskugu yeerayo oo uu dhahayo kaalaya war baan idin wadaaye fariintan ayuu rasuulku dadka u sheegay alayhi salaatu wasalaam wa ala alihi. fariintuna maxay tahay fariintu wuxuu isku soo urura waa la isku kaaliyay waa la isku wada imaaday duhurkii halka dadka ku tujiyay minbar yar oo loo dhisay
كرسي منبر يرو الله دhisay oo geeda ah ayuu fuulay rasuulku kaleey salaatu wasalaam kalimadan ayuuna sheegay wuxuu yiri alhamdulillah ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الذي لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلهي إبا مهله إستغى أيان كالميسانينا إستغى أيان رمينينا إستغى أيان تلسارنينا نفتينا شرك كيدانا إستغى كم ينقلينا أعماش حنحون إننا إيمانا يسانا إلهي أيان كم ينقلي إلهي قاسو قفكو هنونيانا أن لنمين كرين قفكو رميانا أن هنون أسغنانين إلهي كليئة وحانا قرية أيوري إنو محمد يهي أدونك إلهي إيوه فرين وذهيسي انت كذب ضضوا أيوري رسولك عليه الصلاة والسلام أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل النصف الذي قبله ضضوا وحا إلهي حقوقالك أو إيش ياقي إن لا عمر السنين أو وقت دار آل السنين النبي أنبياء كمذا أما النبي والبع وحا لسيا عمرك كي كهري متكير يعني عمر ير أيا لسيا وإني أوشك أن أدعى فأجيب وإني مسؤول وأنتم مسؤولون أيها رسولك عليه الصلاة والسلام حلقة يا أبا مردو إنا نجيريوه إذن كنا مركا عنونا مسؤوليات بأسارا إذن كنا مسؤوليات بأسارا أيضا سارا فماذا أنتم فماذا أنتم قائلون أيها رسولك عليه الصلاة والسلام محضها يسان وحي هذين قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيرا قال صلى الله عليه وآله وسلم مركزا وحي دهن وحان قرينا إنا فرينتي قارسيسي نصيحيسي دذلك آد بحسي إلهي خيرك وأبا المريم رسولك حكول عليه الصلاة والسلام وعلى آله ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وحكو يريد مين قرسانين إلهي كله مين قرسانين محمد إنو يهي أدونك إلهي إيوه إرقيسي مين قرسانين جنة إنا يتهي وحجرته ساعة دنبنا إنا إيمانا يسو مين قرسانين أو وقت مؤجل أوجره ديت أو وحشك يانا أين أرنتها كجرين مين قرسانين إنه إلهي قبور تضدك كسو صار الدون قالوا بلا نشهد بذلك ها أرنتا وانقرسنا يكوير هذين قال رسولك وحكويري اللهم اشهد إلهي وأرنتا مخراتك أو أيكويري أو إلهي مخراتك لي ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحسيري إني تاركم فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا وحان إذن كتغي لبع العلص بعد إذن كتغي هدي أدقب ستان إينا أمين وطلوا لبدا محيين فنادى مناد بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما الثقلان لبدا العرس محيين أيويري لبدا العرس محيين رسولك إله أيو مديري ضد مدبع الله وحاوكوري رسولك عليه الصلاة والسلام كتاب الله متكهروا كتابك إله سبب طرف بيد الله وطرف بيدكم فتمسكوا به والآخر عترتي وكتابك إلهي متكهره oo fiidiisu gacanta Ilaahay bay ku sugantay yaani xaq Ilaahay buu ka yimid fiida kalena idinka gacantiina ay ku sugantay idinka gacanta ku hay kitaabka Quraanka waa xarigi idinki Ilaahay idin dhaxeeyay kan labaadna wal aakharu kan kalena citarati wa qoyskay wa inna al-latif al-khabir nabba'ani annahuma lan yaftariqa hatta yirida alayya al-hawd ay rasuulku alayhi salatu wasalam Ilaahay xog ogaalka aw wuxuu sheegay oo ii waramay labada kitaabkii qoyskaygu inaynan kala tagaynin ilaa ay darka iiga soo arooraan maalinta qiyaama xawdkayga darkayga laga cabahayo ilaa ay iiga soo arooraan fala tuqaddimuhuma fatahlaku wala tuqassiru anhuma fatahlaku ha ka hormarinina ha ka hor dhicina si dadna aad halaagsataan hana ka gaabinina oo ha ka dib dhicina oo marka maxay ahayd aad halaagsataan la socda yaani oo waxay idin sheegayaan labada ku kor socda يعني إنها تكهر دعوان محاكمة إن قرآنك اللو يريو وحضر كيسا مانتا إن لغو فصيرها القرآن كهوذا
إلا رب القرآن كقورتي سنتين للجبين النسك لا إسوافجنا يؤدتك هودو ذا أي رمان إنه القرآن كراعه إن إيه القرآن كراعيان كمان دقنا وسيدي الرسول كدي هلاقه هيد أيام مرة وان كهرس إنك بقى القرآن كهرس عنا إسقى بين الدوس هذا بينما الربعين أن إسقى خد كيس كوس عنه ويسقوا إنه جامي القرآن كأيان إنك كهر رعينا وأنا تي الرسول وكدي صلى الله عليه وآله وسلم سيدو كله إن أنك جاب إننا معها ووحى وشيء علمك أخلاق ذا وناجة أعمال كأن إن أنك شقيسينه إن المحي هيدا أمضها لص عنه كله يعني هرمرك يوحنا ودن إن لص عنه هل كأن مري لهين وأنك جاب الناي يعني وحى القرآن ككتير ما بين الله صبح ككلنا البيت كانوا سيدا وكله طيب سيدا أي رسول كود عليه الصلاة والسلام وعلى آله markii halka la joogo muxuu rasuulkii fariintii leeyri gaarsiin hadaad gaarsiinina waad khiyaantay tanay ahayd ee culayska isaga ku ahayd rasuulka kaleey salaatu wasalaam ilaahay wacdiga iyo yabaha u yiri sidaas samee hadaad sameynina fariintii ergadii waad ka gaabisay halkii lagu yiri muxuu sameeyay cali buu gacantiisa qabtay cali bin abi talib ayuu gacantiisa qabtay kaleey salaatu wasalaam markaas wuxuu yiri koor buu u qaaday gacanta cali intuu minbarkii saaray إلى كل كشوذ الله يعرفه لبضوا ديبا إلا نقول يا لجين قار سنايا مركز الرسول عليه الصلاة والسلام وحيلي هذا كان صوت سعودة أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم وحيلي رسولك قفك مؤمنين تنفط هذا أوليسا أوجا حبان وايو إيش قفك مؤمن كان نفتي قفك كجزي أو ليسن وايو كذا هبون مامور كذا واحتر كذا وحجرش هذا قالوا الله ورسول أعلم وحيكون هذا رسولك إلهي بنلقو قال بدن أرنت أيضا رسولك وحكود عليه الصلاة والسلام وعلى آله إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين إلهي ومامرهيك أنا مامرها مؤمنين تاناي وأنا أولى بهم من أنفسهم أنا أيا كذا هبون نفطوضة وصيدا مصلحة إذينا أنيجا أوك مؤمنين تنفتوا أنا أوجا هبون ومصلحة ضد أقارنا فمن كنت مولاه فعلي مولاه قفك أن أنوه جاميه سي ماموله ساهي علي ماموله سايوجر رسولك عليه الصلاة والسلام اللهم والي من والاه إلهي يو علي قفكي كطير صدا وعلي ولي كدكتا وعلي هو جاميه كدكتا إلهي يو أدينا حرير أيوجر قفك علي حريرية إلهي يو حريري قفكي هو جامية علي كدكتا إلهي يو حريري قفكي علي أنس بشاكتا وإمام كدكتا إلهي يو حريري وعاد من عاداه إلهي قفكي علي لعو الله يتمنى لعو الله يتنذقنا وانصر من نصره إلهي يو قفكي علي أقرقار واخذل من خذله إلهي يو قفكي علي خيامة أذقنا خائن أيها رسولك عليه الصلاة والسلام وادعيه أن بريو وأحب من أحبه إله قفك علي جعل هذا جعله وأبغض من أبغضه إله قفك علي أحناق أذيقنا أحناق وأدري الحق معه حيث دار إله يو حق علي أول الجراء ملك استوء وحق الجراء إله علي أول راح أيولي رسولك عليه الصلاة والسلام يعني إله يو حقه وعلي وافقه رسولك أرن عليه الصلاة والسلام إساو فاسان حديث كان أو رواية كلا دوان كويمت أو مالا كلا دوان كويمت وحكوية لا موسوعة ليرادو موسوعة الغدير أو إسكالة يهنين ليرادو العلامة الأميني أي إسكالة موسوعة الغدير وبوق قاد أوين أو إلها طبان قبل أما طبان جزء أو إسلاك قبل يعني وحنكوا ذا طبان مجلد وكوان وكراء أصل الصعدوي طيب شاكدي كان على الغدير خم ساسي أهي ورسولك أوسمي عليه الصلاة والسلام إذن لما الرموض أيان ربا أن كفالة kaga bixiyo xalaqadayda markii koobaad kulli waan oogay waxa dhahaysaan waa shiici iyo maxay sheeko shiici wada han noqoto haday rabto sheeko shiico laakiin muhiimadu waxa weeye dhacdadan rasuulka kaleey salaatu wasalaam meesha ku qabsatay oo muslimiinta dhan uu kula khitaabay maxaan ka faa'iideynaa faa'iidada ku jirta maxay tahay ilaan aayad quraana ku soo degto lagu yiri fariinta dadka gaarsiin hadii aad gaarsiinina maada sameeynin maada gaarsiinin ayaa lagu yiri وحاجة إلهي كاقيم دادك جارسي هدي هذا السميننا رسالة دي ماذا جارسين طبعا رسالة هو هنونك أخلاق ذا علمك هداية ذا رسول كنو جيريوني
hadduu rasuulku geeriyoonayo waxaa loo baahnaa risaalada qof sii wada, qof sii dhammaystira, qof hanuunkaa sii faafiya ayaa loo baahnaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ardaygiisii ah qofka ugu habboonaa cali buu noqday, waana ka uu dadka u dardaarmay nabigu calayhi salaatu wasalaam. ayib arrinta kale waxaa weeyaan riwaayadan aan idin akhrin iyo qisadan waa mutawaatir oo waa saxiix, waxayna ku taallaa muslimiinta dhan kutubtooda, hadday yihiin sunno, hadday tahay shiico, hadday tahay muctasilo, hadday yihiin khawaarij, hadday yihiin ibaadiyo, firaqda muslimiinta oo dhan kutubtooda way ku taallaa iyadoo mutawaatira. haddii ay ku taallo maxaa kalifay inay kooxaha muslimiinta qaar ka mida ku camal falaan, qaarka kalena ay ka shikeeyaan? ilaan anigu ciidul qadiir baan u aqaanaa. ciid waa maxay? waa wixii soo noqnoqonay sanad walbay soo imaataa. ciid marka way tahay. القدير waa maxay? ciid horta waxa la dhahaa wax kasta oo shareecadu ay weynayso haddana soo noqnoqdo, shaciiro walba oo ay weynayso shareecadu. haddaba kulanka sida u muhiimka oo rasuulkeenu uu sameeyay ciid ma ahmiya, wax la weyneeyo oo la qadariyo oo la ixtiraamo ma ahmiya way tahay. waxaan rabaa marka qisada intaad akhridaan, kutubta dhan aad ka akhridaan, inaad maxay ahaydey wixii laga faa'iidahayo aad ii sheegtaan, mise wax walba oo ku saabsan aalu beydka fadligooda, imaam cali fadligiisa inaga muhiim inooma ahmiya. wax kasta oo ku saabsan aalu beydka fadligooda, imaam cali fadligiisa muhiim inooma ahmiya, may muhiim buu inoo yahay. idan waa inaan qisadan waxa ay ka sheekaynayso iyo waxa ay ku saabsan tahay waa inaan tatabucnaa, waa inaan eegnaa. xalaqada dambe ayaan idinla wadaagi doonaa. hada wa sallallahu ala muhammadin wa alihi الطاهرين.